saddexda qof ee ugu horeysa uu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam ee naarta lagu tuuri doonana waa saddexde waa caalim waa taajir sakhi aha iyo nin mujaahid ahaayo loo maleynayay inuu diin u dhintay saddex amal oo waaweyn bay la imanayaan kana waa mujaahid buu ahaa kana wuxuu ahaa caalim buu ahaa ummadu cilmiga barayo qaari buu ahaa kana wuxuu ahaa maaragtaane sakhi maalqabeen ayuu ahaa xoolihiisu u bixin jiray saddexda camal ay la yimaadeen ilaahay hortii saddexda camalba waxa ku ladhnaa maaragtaane shirki baa ku ladhnaa dadna markaas ilaahay odhanaya aduu waad u dhimatay waad soo dhimatay laakiin aniga dartay umaad soo dhimane in lagaa yiraahdo hebel waa nin dagaalyahan ayaad u soo dhimatay waana lagu yidhi adiguna qaari baad ahayd quraan akhris fiican ama waacid ummadda wacdiye ayaad ahayd oo dadku ay hadalkiisa dhegaystaan wacdiga markaad jeedinayseed ummadda wax u sheegaysa ama aad wax baraysidna aniga dartay umaad barayne hebel waa nin caynkaasoo ummadda wax u sheego carab fasiixi ayaa hal lagula yidhahdaa islahayd kana waxaa la odhanayaa adiguna nin maalka bixiyaad ahayd oo meel kastoo khayra xoolaha waad ku bixinaysay hadday masaajid tahay hadday madaaris tahay hadday aytaam tahay laakiin waxaad u bixinaysay waa hebel waa sakhi hal lagu yidhaahdo saddexdiinnaasi waa laynii yidhi adduunka dusheediiye agtayda waxaad ku leedihiin waa naarta ku tuura la odhan doonaa xadiidka abaa hurayra radia allaahu canhu markuu sheegi jiray uu ooyi jiray uu kici jiray uu dhici jiray waa la kicin jiray uu ooyi jiray uu kici jiray markay naftu ay ka bixi inay ka baxda halis u gaadho ayuu xadiidka nebigu ka maqlay uu sheegi jiray lilaahi waa inuu ahaadaa qofka muslimku waxaa dadka u qaban ilaahay darti ugu qabo waa inaad ku doontaa camalkaaga aakhiro camalkaaga adduunyada ha ku doonin cabdillaahi ibnu mubaarak raxmatullaahi calayh ayaa lagu yidhi maninnaas dadi ayay yihiin noo sheeg markaasuu alculamaa dad haddaad i weyddiiseen dad waxa weeyaan waa culammada waa dadka ilaahay cilmigiisa yaqaana waa dadka ilaahay yaqaana ee aakhirada yaqaana ee shareecadda islaamka yaqaana dadkaasuunbaa dada markaasaa lagu yidhi famanilmuluuk kuwa haddii aad dad ku sheegtay haddana boqorraduna ayay yihiin markaasaa yuu yidhi azzuhaad waa dadka zaahidiinta ee adduunyada ka zaahiday ee adduunyada bedhbidhkayga waxa dul yaalla waxba aanan u arkayni markaasaa lagu yidhi ma tawaaducana bal noo sheeg tawaaduc muxuu yahay markaasaa lagu yidhi attakaburu cala alaqniyaa dadka hantiilayaasha oo agtaada aan waxba aad u arkin oo agtaada qiima aanan ku yeelan taasaa tawaaduc la yidhahdaa buu ku yidhi markaasaa lagu yidhi faman isufahaa dadka sufahaduna ayay yihiin maangaabka caqliga aan lahayn wuxuu yidhi alladii ya'kulu diina biddunyaa waa qofka magac diineed xambaarsan laakiin magacaa diineed haddana dadka adduunye kaga doonaya wejigiisaa diineed adduunyada u isticmaalaya kaasaa safiiha buu yidhi fanuxsin dadka haddaan wax u qabanayno haddaan wax u sheegayno haddaan wax barayno haddaan ixsaan u samayno haddaan infaaqinayno waxay naga noqonaysaa waa ilaahay dartii man asbaxa minkum aaminan fii saribihi mucaafan fii jasadihi cindahu quuta yowmihi fakaannamaa xiizat lahu ddunyaa bixadaafirihaa qofka waagu ugu bariistay buu nebigu yidhi isagoo nabad qaba iyo jidhkiisii oo bad qaba quutal yoomkiina maalintaa wuxuu cunayayna haysta buu nebigu yidhi nicmaddii adduunyada taalloo dhan waa la siiyey buu rasuulku yidhi waagii baa kuu baryey dadkaagii iyo adigii oo nabad qaba amnigu waa nicmo ilaahayna siiyey ilaahay ku mahadiya amniga ha la ilaaliyo nicmadda ilaahay uu bixiyo nicmadda ugu weyn waa islaamnimada nicmadda labaadna culimmadu waxay yidhahdeen waa caafimaadka nicmad saddexaad haddii la sheegana waa nabadgelyada rabbi ijcal hada albalada aaminan amnigu waa qaali weeyaan ibraahim baa ku ducaystay amniga bishu markay belatuu nebigu ku ducaystuu yidhi allaahuma ahillu biاlyumni wاliimaan wاsalaamati wاlislaam rabbii warabuka allah allahuma ahillu calayna biاlyumni wاliimaan bishii baa belanaysa waxaa sunna inaad ku ducaysatid bishaas inay barako kuula dhalato barako iyo nabadgelyo inay amni la dhalato inay arsaaqad baraka kuula dhalato in islaamnimada ilaahay kugu sugo in nabadqabna ilaahay ku siiyo nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam
waxau ku ducaysanayay laba shay buu inamadiisa ugu duceeyey markuu beydka ilaahay ugu ducaynayay labadaa maxay ahayd in ilaahay duriyadiisa shirkiga ilaahay uu ka ilaaliyo amnina ilaahay uu siiyo waa tawxiidkii wuxuu israaciyay nabadgelyadii waayo haddaan nabad la haysan sidan masaajida loo camiri maayo sidan loo soo shaqo tagi maayo marka amniga ilaahay baa haya caafimaadka ilaahay baa haya arsaaqada ilaahay baa haya waxaad adigu haysata ilaahay baa ku siiyey waxa ka maqan ilaahay un baa ku haya fanas'al min allah ilaahay wax walba han weydiisano ilaahay waa xayi xishood badane adoonka hadduu gacmaha kor u qaado yidhaahdo ilaah waxaa isii inuu faramadhni ilaahay ku soo cesho waa ka xishoodaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam falaa nansa dad badan maanta ilaahay way iloobeen qaar zamankay raaceen zamanka qaar maaddadii baa qaadatay qaar shahawaadkii baa qaatay yaa ka soo ridi markaa yaa u nasteexayn yaa u damqan ilaahay mar walba xasuusnow dadkan ilaahay xasuusi aakhirada xasuusnow dadka aakhirada ugu yeedh mar walba labada qalbigeenna hadday ku weynaato macsiyaddu way yaraanoo taacadda ayaa badan qofku hadduu mar walba ilaahay xasuusan yahay uu aakhirada xasuusan yahay bay culimmadu yidhaahdeen saddex sifa ilaahay siiyaa tacjiila tawba qofka mar walba ilaahay xasuusan inuu dhimanayana xasuusan baa la yidhi qofkaasi toobadda waa u degdegaa toobadda dib u dhigi maayo wuu degdegi sifada labaada ilaahay uu siiyey ma taqaanaa qofkaas qanaacatun fi lqalbi arsaaqadda iyo adduunyadana inta ilaahay uu qadaray ayuu qofkaasi raalli ku noqdaa ta saddexaadna baa la yidhi hee annashaatu fi lcibaada taacadda ilaahay buu qofkaasi u jajabnaanayaa inaad salaaddu kuu dhib yaraato oo soonku kuu dhib yaraado oo qur'aan akhrisku kuu dhib yaraado oo fadhiga masjidku kuu macaanaado oo diinta barashadeedu kuu dhib yaraato oo camalfalka diintu kuu macaanaato waxaa keenaya waa haddii qalbigaaga mar walba ilaahay aad ku haysid aakhiraduna ay ku hor taallo labadaasi hadday qalbigeenna ay ku yaraatana saddex cuquubo qofka ku dhacda saddex cuquubo cuquubada koowaad waxa weeyaan baa la yidhi toobaddu ayuu dib u dhigtaa horey u toobad keeni maayo ila waad dhimanaysaa isma leh muxuu isleeyahay waad noolaanaysaa buu isleeyahay qanaaco ma yeelanayo qalbigiisu qanaaco ma yeelanayo waxa adduunka maal yaallo oo dhan siduu ku heli lahaa ayuu habeen iyo maalin ka shaqayn mana helayo halka ka qalbigiisa aakhiradu ku weyn tahay cibaadada iyo taacaddu u dhib yaraanaysana kana waxaa ku dhacaysa alkasalu fi lcibaada cibaadadii ilaahay baa ku noqonaysa culays